Guddida Golaha Wakiilada ee Somaliland u qaabilsan dabagalka hantida qaranka ayaa maanta warbixin ay ka jeediyeen golahaasi waxay ku sheegeen socdaal ay dhawaan ku tageen guud ahaanba gobolada Somaliland iyo waxyaabihii ay kala kulmeen iyo sidoo kale waxyaabaha u qabsoomay muddadii 5 bilood ahayd ee ay xilka hayeen. Mudanayaasha guddidani ayaa warbixin maanta ay halkaasi ka jeediyeen waxa ka mid ahaa socdaal ay ku tageen magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareed taasi oo ay sheegeen in company la siiyay qandaraaska dhismaha garoonka magaalada Oodweyne sanadkii 2018 ilaa 19 ay dhistay kaasi oo ay ka gadaal dumisay dabayl xoog leh isla markaasina ay dhulka la sintay guud ahaanba xayndaabkii loo sameeyay airportka magaalada Oodweyne. Waxa kale oo sheegeen in mar labaad la siiyay company kale oo la yiraahdo magaciisa Libax Construction Company taasi oo dhismaha garoonku haata socdo wajigii koobaad. Guddida waxa kale oo ay soo ogaatay in riigii laga qodayay magaalada Oodweyne oo lacagtiisu ahayd 500,000 oo doolar taasi oo laga bixiyay khasnada madaxtooyada in gabi ahaanba aan waxba laga fulinin habeen madowna laga guuray riigii taasi oo isaga tagtay sharikadii hawlgalisay dhismaha riigani. Guddida dabagalka hantida qaranka ee u qaabilsan golaha wakiilada ayaa waxa uu gudoomiyaha golaha wakiilada ugu baaqay inay ku soo dhameeyaan warbixinta muddo 2 maalmood ah iyo sidoo kale la xisaabtankii ay sameeyeen si loo gudagalo ansixinta miisaaniyadda qaranka ee sanadkan 2022. Waa Xuseen Axmed Abees, Som News TV, magaalada Hargeysa. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland.